السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصوماليات أصحاب تيدا ميل أي شوغان وادين سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين هندا ومعلمها عبارة إن كم مغنيت سام فيليو ربطنا إن وحير كتابته وروايو قفك الصومالي يديدن إنه عنشور بحيو وكما maxay Soomaaliya dib ugu hanan kartaa qarannimadeedii iyo maxay waa maxay xalka faa'iidooyinka laga dhaxlo ama laga garan karo iskaashiga iyo midnimada marka haddaan ku hornay waayo qofka Soomaaliga ee diidan canshuurta reality-ga markaan u dhaqaaqno wadan kasta dalkiisa dhista canshuurtiisuna ku dhistaa wax la soo bariyay dal lagu ma dhiso bini aadana waxba kama kafeeyaan dalka mana ka qaadan لكن إسكاشة ما كفتو بلا آدم كم مركز إسكاشدان أو أي شلن كدران أي وحوين النقطة وإحنا كل إستان دالكو هذا نبت قليو هذا كسوغان نظافة هذا كسوغان هاي له هذا الدستوري كونستيتيوشن كود إمارة هاي هيكل كود دول النمط كل إستان مركب ما أنت قفك الصومالي جاه يدا ودنك الصومالي أن أجنه مرحلة أوجاري قفك الديدن عنشور إنه بحيو معناه هذا محيطه maxaan qofkaas u aqoonsan karnaa muxuu yahay maxaan ka fahmi karnaa qofkaasi waxaan ka fahmi karnaa inuu yahay qof aan doonayn dawladnimo iyo qarannimo Soomaaliya inay dib u soo noqoto waxaan ka dheehan karnaa inuu yahay qof u shaqeynaya urur ama group macnaha mabaadi uu ku raacsan yahay oo bilaf gareysan yahay sida al-shabaab oo kale dadka al-shabaab u shaqeynaya naga mid weeye waana ganacsatada Soomaaliyeed ayay ka mid yihiin marka al-shabaab dadkii u shaqeynaya oo ganacsanayay oo al-shabaab ugu ridayay maaragtay lacagta ugu tuurayay telefoonadooda oo dawladda kuwa u shaqeeya canshuurta ka qaadanaya waa nagu dhex jiraan taa waxaa loo baahan yahay marka inaan la isfahmo hadday laba canshuurood bixinayaanna way awoodaan tood inay ha bixiyaan ay walba siin jiraan al-shabaab tan dawladdana ha iska bixiyaan si aysan calaamadahooda loo fahmin sababtoo ma suurtoobayso qof ganacsataa inuu yiri canshuur bixin maayo qofkii bayje qaata adduunka oo dhan ba loogama dhaqmo waxa adduunka looga dhaqmina hadda anagu inaan ku dhaqanaa dawlad maba noqon karnaba Soomaaliya wixii dawlad ummad bini aadan oo dawlad ku noqoto sharuudaheeda waa inaan anaguna ku dhaqanaa sidaas uma dawlad ku noqon karnaa marka dadkii al-shabaab u shaqeynayay oo canshuurta siinayay oo u hoggaansanaa oo shaqaalaha dawladda xataa ka qaadanayay maxay to canshuurta oo al-shabaab ka guranaysay magaalada dhexdeeda wax wali waa joogaan marka qofka ganacsatada ah oo Soomaaliyeed oo wadankiisii oo burbursan raba asagu intuu sar muraayada leh seexdo oo hareerihiisu qashin yaalo oo gurigiisa dabadiisa darbi chief wiil ah gaajaysan uu hurdo oo hooyo tuugsanayso qaawane oo cunug sidataa ay dhinaceed gurigiisa hooskiisa ay fadhido qofka ku raaxaysanayo u malay inuu raaxo ku jiro horta kaas waa mid noocaas dadka raaxada u qaba horta raaxo ma aha taas waa silc aduun asaguna markuu soo subaxii kacana caawa ma baryaysaa baridna ma soo markuu guriga albaabkiisa ka baxay ma ku soo nabad noqon doontaa cabsi taas iyadoo wadka loo wada simayo wad qof walba saacadiisa dhimanayo laakiin adduunka intuu ku nool yahay walwal inuu ku noolaado ku nool oo maaragtay ku macnaha walwal inuu ku noolaado doortay sababta oo guriga muraayadaha leh quruxdiisa iyo bilicdiisu ma soo baxdo marka uusan jidkii dhinac marayay iyo gadaashiisii fiyooro ku abuurnayn oo hortiisii laami nadiifa uusan marayn oo quruxdiisa ma muuqanayso bustii iyo qashinkii unbaa daaqadiisana ku duulaya fool xuma asagoo qofka ku jira u qaba inuu wax fiican ku jiro laakiin runtii kuma jiro qashin buu dhex fadhiyaa marka dalka canshuur maxaa lagu dhisaa waa kii dalka lagu nadiifinayay laamiga loogu dhisayay oo maaragtay haadihii maaragtay iskuulka loogu dhisayay oo caafimaadka loogu dhisay friiga oo biyaha loo nadiifka ay ku helayeen oo korontada ay ku helayeen adeegyadooda iyagoo ay naftooda u baahnaayeen wixii lagu helayay weey marka ninka doonaya inuu gurigiisa generator ka daaro generator oo injiinkaas asaga habeenka u shaqeynaya guriga ku xiga oo cariishka uu mugdi yahay ma garad kaas horta waa qof aan nolosha fahamsanayn weey nolosha ka maqan hadduu u qabo asagu gurigiisa dhexdiisa noloshu inay tahay nolol qofkaasi ma haysto nabadgelyana ma haysto quruxna ma haysto bini aadanka ishoodu inay doogsataa fiican
markuu qofku soo kaco meel nadiifa inuu soo kaco albaabka markuu soo baxo laami nadiifa maro oo maxay ahayto fiyooro nadiifa oo maaragtay la talaalay uu maro oo indhaha waxaas cagaar soo baxay oo arko yaa naftu ku raaxaysataa gurigiisuna markaas macna sameynaya laakiin sar bus albaabkiisa bus yahay oo dabadiisa bus tahay oo darbi jiifo horta qurux maaha dadka nimanka u haysta inay qurux tahay marka lacagtaad al-shabaab siin jirteen dhulkiina waa ilaa kugu dhiso waa inaad dhiibtaan ganacsatada markii horeba waa dhiibi jirteen kii marka soo haray oo beec mushtarka ku keeni jiray ama daawada dhacday ama cuntada dhacday oo maxaa iga galaya horta ka waa ilaahay baa ka soo gaaray ummadaad haligi jirtay wixii dhintana ilaahay baa ka xisaabinaya oo wixii aad adigu maaragtay gacmahaaga ku soo aruurisay ood ku khaladay dad masaakiin oo kaabsool bur uga soo buuxisay oo aad ku laysay ilaahay baa taa ka xisaabinaya laakiin alxamdulillah wixii hadda ka dambeeya ilaahay waa ka soo gaaray ummadaas dawlad buu u keenay wax tayale waxaan ahayn oo aan la jeegarayna ma soo galayaan canshuurtana kii bixin waaya waa al-shabaab waana u soo jeensanaynaa waana iska qabanaynaa runtii wax kale u aqoonsan mayno ninka maanta soomaaliya diida waxtarkeeda iyo maaragtay dhismaheeda oo lugta maanta qabta waa cadow weeye cidduu doona ha ahaado waa cadowna hadda waa in laysugu tagaa waa in laysugu tagaa sababta waxaad arkaysaa wiilka al-shabaabka ah iyo wiilka kale aan al-shabaabka ahayn oo guri ku wada nool kii marka haddaad qariso adigu al-shabaabka adoo og oo tiraado aniga iyo igu marmarsoonay aniga iyo igu magac sheegan adigu bari adaa u maqan adiga fikirka adigu aad xataa xeerinayso al-shabaab ma xeerinayo wiilka al-shabaabka ahay waxbaa cajalad baa lagu shubay cajaladaas waxaan ahayn oo marayaana ma jirto hooyadii iyo aabihii buu ugu hormarayaaba wuxuu aaminsan janno inuu ku tagay ilaane oo iyagu ay baadilan yihiin marka kaas baad canshuurta siinaysay adiga gurigaagii iyo biyahaagii iyo nalkaagii iyo nadaafadaadii iyo dhakhtarkaagii kii lagu samaynayna waa diidan tahay taa waxaa weeye saaxiib waa ku fahmnay wey waa ku fahmnay waa laydin fahmay canshuurta waa la bixinayaa mana aha in la iska baryo haddaad mudaharaad keentaan oo tirahdaan waxma soo dejin maynana kolay liiska waa noogu jirtaan ganacsatada waddanka wax soo dejisay waa la yaqaanaa waa la yaqaanaa inta qurba joogta iyo wixii kaloo wax awooda iyo wixii maaragtay tabar isku hayaana oo waddankooda jecel oo dan kale dadkoodana way soo degsan shaqadu way socon ninkii harana dee liiskaasu noogu jiraa liiska wuxuu noogu jiraa dabadhaca iyo dowlad la-aanta ka shaqeeya oo dowlad diidka ah waana iska qabanayna insha allahu tacaala ama ganacsato ahow ama mid waawan ama mid yar ahow marka waa qolada canshuurta diidaysaay canshuur qola aan dhiibin adduunka xaggee lagu arko oo dal dhan oo dhismahaya oo weliba baaba-ay oo aan wado lahayn oo aan biyihiisii ku filan lahayn oo warshada lahayn oo wax soo saar lahayn oo canshuur la diidayo xaggee lagu arka canshuurta nin walba sakuuradkiisa wey sakuuratigiisaa lagu ilaalinayaa oo ciidamadii baa qaadanaya nadaafadiisi waa lagu ilaalinayaa bilacdiisa magaalada lagu ilaalinayaa wax adeegii bulshadao dhan baa lagu ilaalinayaa marka qofkaasi dadku ha isxil qaabeen waxyaabihii hadday u barteen corruption iyo dowlad la-aan iyo nin walba waxaad doonta samee wax qalbigiina u sheega wixii in laga baxay wuxuu inay dhammaan karaanna ogaada mar bay bilowdeen iyagu weligooda ma jiri jirin corruptionka weligeed ma jiri jirin dowlad la-aanta weligeed ma soo jiri jirin wax soo jireena ma ahayn waxay ahayd wax muddo bilowday marka waxaad fahamtaan oo aad isku qufisho isku akrisaan inay dhammaatay waqtigii marka dowladdii hore waqtigay dhacday bay bilaabatay haddana dowlad baa timid macnaha iyadii laftigeeda xilli lagu soo jirjiray burburkaas iyo dhibaatadaas iyo nabadgelyaanta inay dhammaatay ogaada inay dhammaan karto ogaada wixii meeshii hadma taagna hadda sida nimanka mucaaradka ah oo kale nin walba wuxuu doono uu samayn jiray nin walba ninkuu doonana uu soo gelin jiray markii la iska qabtana waa ree hebel ba awalba awrka lagu kacsan jiray tiina waxaad moodaa inay xadadantay oo maaragtay ummadii fahamtay kii meel laga qaado shaqaysan waaye ree hebel baa laga qaadaa la oran jiray walaalkiisaa la geyn oo shaqaysanaya maxaa talaa marka maxaaba la dhihi warkas halkaas wixii ku xirmeenba meel fiican bay hadda marka maraysaa dadku markaan kala bixi weeye kala bixi waa kala hufkiiyo kala haadintii weeye waqtiga dadka kala baran lahaaba oo kala silsilka ahaaba walaahi lagu jiraa kan mucaaradka mucaaradka soomaalidu waa iska garanaysaan mucaarad soomaalidu ma yaqaanaan hab wax loo mucaarado macnaha mucaaradkana dad fahamsan maaha horena waa u sheega 100 jeer dad tareerin iyo maaragta nidaam iyo inay la jaan qaadaan mucaaradada adduunka u baahan weeye horta waxay soo bartaan nidaamka mucaarad qofku wuxuu ku tartamaa ama mucaarada dhaliilo dawladdu leedahay wuxuuna soo bandhigaa
waxyaabihii uu ku bedeli lahaa iyo sidii maarata iyagu uu wax u wanaajin lahaa haddii fursad helo iyo horta isku xayeysiyo dadweynaha unbaa wax laga gadaaye wax dadweynaha ka baxsan oo maaragtay iyo qolo nin dabada ku sita iyo nin calooshiisa u shaqaysana horta mucaarad lama yidhaahdo waa daba dhilif waa dad calooshi u shaqaystaa weligeedna waa wax jiri jiray kaas mucaarad yaana laga oranin mucaarad magaca mucaarad laftigiisa yaan wax loo dhimin oo lagu xadgudbin magaca mucaarad kale wuxuu leeyahay definition buu leeyahay qeexid buu leeyahay iyo meel loo raaco marka wax walba wixii calooshii u shaqaysanayay iyo shisheeyaha u shaqay daba dhilifka ahaa yaan lagu tilmaamin mucaarad ma aha mucaaradku waa qofka wax u toosinaya dalkiisa oo dadkiisa wax u toosinaya oo wax u wanaajinaya wey marka taa horta mucaarad tiisa horta halkaa laga barto middan marka waxaa kuu soo hartay soomaaliya maxay dan ugu jirtaa soomaaliya yaan gacmaha dhiig ku lahayn ama waqooyi ha ka soo jeedo ama koonfur ha ka soo jeedo nin walba dunuub buu galay ama ha ku galo mabda iyo diin ha ku galo ama mid qabayl ha ku galo wuxuu doona ha ku galee nin walba gacmaha dhiig buu ku leeyahay waxa looga bixi karo oo macnaha looga sarfayfi karaana waa in la iscafiyo hore looga socdo gacmahana la isqabsado wax kaloo meeshaan yaalla ma leh wax kale oo looga fakan karo taa ma jirto cafis oo bilaa shuruud ah iyo mid aan shuruud lahayn oo shuruud lahayn oo cafisa oo shuruud la-aan in hore looga socdo laguna badbaadiyo inta nool iyo kuwa soo socda inta hadda xaadirka wixii tagay waa tageen xasuuq baan maqlayay ee ka dhacayay macnaha snmtu ay dhigeen waagii qolooyinkan maaragta reeshi isaaq markay soo galeen boorama xasuuq aad u baan oo wadaad ka sheekeynayaan maqlayay kuwii xasuuqayana hadda waa madax ayaguna waxay caruurtooda ku akriyeen yararka ahaa waana la xasuuqayo diyaaradana lagu laayayo diyaaradda dadka wax ku leynahaya iyo xasuuqana waa ayagaa causation-ka ayagaa iska lahaa wax walba sabab bay leeyihiin wax sabab la-aan ku dhaca ma jirto dad shiciba meel fadhiya inta loo yimid xabad lagalama dhicin dad mucaarada oo kacay ayaa shacabkaasna ku gabaday gabaad ka dhigtay dowladdiina dagaal kula soo jeestay dowladduna waa khasab inay ka jawaabto oo iska celiso taas marka waa tii mucaaradkii waqooyi galbeed wixi iyagu ay sababeen wixii ka yimid oo ka dhashay inay iyagu marka iyagu bari iska bariyeelaan waa wax laga fiican yahay waa wax xaqiiqdana ka fog wuxuuna haddayna xaqiiqda la wajihin xaqiiqda haddaan la wajihin daawadeeda lama helayo marka soomaalida waxay tiraa nin dhagax tuuray nin dhala qabo dhagax ma tuuro ayagii oo dowlad kaa xoog bayn markaad adigu aad la dagaalamaysid oo aad maarata mucaaradka ku tahay oo aad saldhi kala yeelan weyda caruurtii iyo naagihii ka dhex dagaalantay caruurta iyo naagaha wixii soo goolay adaa ugu yeeray taa ogorta ogow idinkaa u dalbay marka waxa aad ku shubteen caruurihiina special gobolka waqooyi galbeed markaan beeshan reeshi isaxaa ka hadlayo waxa lagu shubo waa been runtii aan jirin been baa caruurtii laga dhaadhiciyey caruurtii oo wada kacsan oo been laga dhaadhiciyo wax hadda u baahanba isbitaal iyo muddo badan wallahi rehabilitation in loo sameeyo maahana qaar baan sina loo karaynba qaarna alxamdulillah qaarna waa kasoo waantoobeen waa soo garanayaan maalin ka dambaysa midda kalena waxay dadku usoo bislaanayaan ogaanaya qabyaalada qaabdaradeeda ay ogaanayaan qabiilku inuusan qabyaaladu faa'iido lahayn bay ogaanayaan kii kugu soo haraba kii kale wuu sii kala jabaya kii soo haraa sii kala jabaya cid wuxuu ogol ma leh hadda waxaa leeyahy jeegaan baa haysata hargeysa iyo burco jeegaanta xataa uma dhama dadkan jeegaanta labada beelood allow meeqaa baahan meeqaa dhibaataysan ma waxma wada haystaan magac unbaa la raacinayaa ma ahane dad macnaha ay ku filan tahay ma ahan labadaa qabiil labadaa jif haddii loo daaya xataa dowladda kuma filla inta qabsatay kuma filla mana kafeeyaan qabiilna weligii wax ma kafayn doono waxna ma kafayn doono mana kafayn horena uma kafayn marka qabyaalada ha la iska daayo qoloqolada ha la iska daayo isaaqdan maxay tahay marka uu sheeganaya leeyahay waa la xasuuqay asaguna waxbuu xasuuqay wixii asaga hadda xasuuqaana meeshaan maba joogaanba laakiin ayagu waxbay xasuuqeen kuwa xasuuqaana weli waa joogaan saasooy tahay in la iscafiyaa yaan dalbaynaa oo aan waxba lasoo qufin oo la isdaayo la iscafiyo si hore loogu socdo ilaa maanta o dhan meeshii in la taagnoodo la iska daba meeraystahay macno ma samaynayso faa'iidana ma soo kordhiso waa la idilay waa adna waxbaa dishay cid macnaha nadiifo ah oo hadda maaragtay le magdhow hana la siiyo annagaan weligay wax taabana ma jirto cid walba waxbay laysay waxaa laga yaabaa kuwa victimka oo runta weligoodba inaanay hadlin kuwa iyaga la dilay oo la dhibaateeyey inaanay weligoodba hadlin inaanay weligoodba soo qaadin inay soomaali islaysay oo shaydaan qaalib ka noqday ka soo qaadeen horena uga socdeen kuwa marka iyagu laayay wixii ayaga loo laayana sababteeda lahaa inay waa nala laaye la taagnaadaan waa laga qurux badan yahay waa sax runta in laysu sheego weye runta in laysu sheego weye dhalinyarada reer waqooyina oo weliba khaasatan
reeshii isxaaqna waxaan ka codsanaynaa inay taariikhda dib u baaraan waxaana uga filan in badan oo iyaga kamid ah hadday caqli leeyihiin maanta meesha ay taagan tahay maamulka Hargeysa iyo Burco oo reeshii isxaaq uga filan intaasaa dawo ugu filan hadday caqli leeyihiin sababtoo hadday wax daweynayaan dawlad qaran ah ayay qaaradda ka tireen oo Soomaaliyeed hadday ka tireen maxay ugu bedeleen waxay ugu bedeleen baaba iyo burbur ahayn iyo inay maalin bal qolo qaninto ma jirto uguma bedelin ayagiiba maxkamad in la saaro u baahan oo lala xisaabtamo ilaahay baan ku dhaartay marka qabyaalad baa tunka loogu sito war qabyaalada iska daayo waa imtixaan ilaahay ummadan ku saliday wax kale uguma salidin ayaga ilaahay diintiisa ka fogaaday sababtoo qofka haduu ilaahay yaqaano oo ilaahay u noqdo boqolkiiba boqol macnaha dhibaatada ma arko sababtoo mar walba xadiis ama aayad baa qabanaysa laakiin kitaabkii islaam baa magaci laga sheeganay meel baa inta lagu tuuray qabyaalad baa kitaab ilaahay kitaabka ilaahay wax xoog badan oo uga mudan oo maartay uga xirmo badan yihiin oo ay uga dhaqan badan yihiin ajiibka la arkay ilaahay iimaanka hol ku soo cesho Soomaaliya ummadayada iimaanka Allah ku soo cesho wallahi meel xun bay mareenay marka dawlad baa hadda alla siiyay ilaahay wuxuu u soo diray ilaahay baa ilaa ummadiisa isaga shimbiriisa u soo diray qofku rabo inuu caymiyo waxbuu uga sababaa waxbuu ku sababaa hoggaan fiican oo ilaahay macnaha oo maxay cadaalad ah oo maaragtay oo waliba wadani ah oo jecel inay markala qaaradda adduunka ku soo noqdaan ayaa ilaahay u soo diray ilaahay markaas hoggaankii wuxuu ku sii caymiyey ra'iisul wasaare howlkar ah oo cajiib ah oo asna wadaniya oo mataana aad moodo oo mideeye iyo madaalo aan u bixinay marka waxa ilaahay kale ku soo mideeyay ilaahay wuxuu ma tashiilo ugu dhiibay tashiile nin la yiraahdo tashiile yaa ilaahay maaliyadii ugu dhiibay waa wadani ilaahay aqoonteeda iyo xirfadeedana siiyay suu maamul yaqaan iyo suu ugu tashiil yaqaan oo ugu beeqaaminayo ilaahay marka ummadan wuxuu ku cay wax teamkan ilaahay ugu soo diray wuxuu ugu talagalay inuu caymiyo wixii ilaahay cayminayana hadda cidna kala tashado cidna wuxuu ilaahay cayminayo cidna kala tashado marka dadka hadda marka ay ku quflan tahay oo maxay ahayto ama canshuurta diidan oo wali nidaam xumadii muddada faraha badan lagu soo jiray iyo maaragtay corruptionkii faraha badnaa iyo dawlad la'aantii macnaha wali ay ka dagiladahay maxaan wax u bixinayaa oo seebaan u bixiyaa oo wax la'aanta weligeed canshuurta bixin qalbigiina bara oo la barta la qabsada wax kasta waa la qabsadaa wax walba waad la qabsan kartaan waxaan la baran karin male sidaa daraadeed canshuurtana ha la bixiyo ha la iscafiyo maxay to faa'iidada midnimada iyo maartay wada jirku leeyahay waxaan ka baran karaa si very simple boosaaso dekadiirta macbilka laga dhisay markii doontii ku caariday oo dekadeedii hore laga xirtay 7 bari waayo ku dhisay doon ku gaaray badda moolkaad aragtay ku aasay gacmo wada jir bay ku gooyaan bal imagine bal qiyaas Soomaaliya mid wada qiyaas labadan hadda awalba isku jirayo maartay awalba midka ahaa marka iyagoo madoobaan bal kuwa kale haday ku soo dirsamaan warkeeda badaa labadan markay midoobeen waa kuwa ilaa meel walba yaad sabab jiray haddana markay ilaahay midnimadooda ha ku soo cesho kuwa kale ka maqan ee waxyahooda inta maqan Allah u soo dhameystiro haddana anagu gaarin waxa gaari doona jiilasha soo socda insha Allah ta'ala laakiin waa rajo mar wala qabo caalanka shanta gees xidigta ku taalo shanta gees leh oo carabka buluuga ku dhex taal macna la'aan ugu ma taalo waa loo fakray macnayna ugu taala sumadaas waa sumad maalin ay noqotaba maalin bayna sumada gaarayaan iyo goolkii iyo dreamkii laga lahaa insha Allah maalin baa la gaaraya ragii marka ka shaqeyn lahaa oo macnaha u sii gogol xaari lahaa oo wadada u sii xaari lahaa ilaahay waa nasiye maanta Soomaaliya gacmaha la isqabsado dhalinyaradan yaroo karkarsan oo waqooyiga laga keenayo oo reer waqooyiga balaayada laga buuxshayo quluubihiina quraanka ilaahay iyo runta ku mayro runta iyo ilaahay diintiisa ku mayro ilaahay hadaad u noqotaan waa mayrmaysaan runta hadaad isu sheegtaan waa mayrmaysaan runta hadaad isu laakiin difaac wilban maalin la hadlay life u galay waxa iraada anaga maxay dadkii jamhadii baa bilaabay problemkii oo dhan halkaas ay ku soo xaliyeen wadankiina waxba uma qaban waana burburiyeen adigu hadaa hadal badan kadib wixii naadigu yaa u dhalatay aan waxaan iri habar gidir baana markaas naga tag daarood baan ku moodayna maanta waadna xiijisay anaga tag daarood baan ku moodayna wallahi billahi tallahi waa tabtaas oo maxaad idaarood ku dhimo gaara wala meel Soomaali qof baad iska celinaysaa
mise qarannimo iyo soomaalinimo iyo midnimaan yaanu ka fakarnaa mise ree hebel iska celi bas caqligooda ku soo aruuray dhalinyarada caqligooda wuxuu ku soo aruuray ree hebel iska celi qofkana ree hebelka hadduu waxay sheegaya xataa wallahi su kow ka oranayn dhagaysanay xataa nacayb uu qabo bas ree hebel buu nacayb yahay darteed uma dhagaysanay xigmad kasta hadduu qofkaasi sheegi kama faa'iidaysanay qofkaasi qalbigiisi baaba isxirayaba marka ilaahay ummadda daawo khayr qabta ha u keeno caafimaad sareexa allaha siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa soomaali midnimo waarta ha siiyo marka faa'iidada midnimadu leedahay aan ku soo celiyo dekadii boosaaso waa ree boosaaso ree garoowe kuma jiraan qarno kuma jiro qolo kale kuma jirto hargeysa kuma jirto koonfur kuma jirto waa boosaaso iyuunbaa wiig gudihiis ku badbaadsaday intaasoo hantiga ku badbaadiyey bal ka waran intaa ka badan markay isu timaado ay maarata unity wax ku yihiin oy ku midoobaan waayo cidda hor istaagi karta ilaahay mooye cidda hor istaagi karta male laakiin adigu maxaad ku diidan tahay midnimada waabaa la idilay mid baa mid ku dhuusay mid baa mid inta istaagay waaba ifiirshay macna ma samaysa adduunka oo dhan waa iswada fiirshay adduunkana waa iswada dilay dagaal sokeeyuu ahaa kuwii la dilay oo hadda laga sheekeynayay ayaa maaragtay yaa diyaar u ah inay waxba wax cafiyaan oo hortooda dadkooda lagu laayay oo hantidooda lagu dhacay oo qaar hantidooda maqan yaa cafis diyaar u ah maxaa cafis kale wax cafis ka fiican ma jiro oo macnaha faa'iido keeni kara sababta qof saliim ah kala waa la idilay asbax buu dilay adna waxba disay adna waa Soomaali waa iswadeejisay xagga marka ila iska in wax gadaal loogu noqnoqda macna ma sameynayaan haday waxba soo kordhinayn sida daraadeed in la iscafiyo horay looga socdo Soomaali ha midowdo iimaankana Allah ku sugo dawladoodana dawlad khayr qabta oo mideeye iyo maxay madaala Allah u keenay iyo tashiile ilaahay ha u calfo iyo tiimka la shaqeeyo iyo xildhibaanada telefon baa iga jarjaraya marka ina iskaga baxo telefon nafta ii keenay marka Soomaali guul baan u rajeynayaa midnimo waartaan u rajeynayaa ilaahay waxaan ka baryayaa muwaafaqo waarta inuu Soomaali siiyo inuu xoogooda iyo aqligooda mideeyo canshuurta ha la bixiyo ilaahay ha laga cabsado ninka canshuurta iyo dhismaha wadanka ka hor yimaado cadowga yaa tahay ogow mucaaradka beenta ah oo macnaha ku marmarsoonaya maarta magaca mucaarad sito ma tihida dabadhil caloosha shaqaysta tahay kaamaana yeelin way iska ka celinaynaa soo barta mucaaradnimada waxa ay tahay in nidaamka wax loo mucaarado adduunyada ka soo barta suudka sida loo xirto waad ka barateen horta sida wax loo mucaaradana ka bartade ilaa sida suudka loo xirto oo dadka loola dhibeed iyo dadka loola maaragta loo mucaarado dadka loola jaqjaqleeyo barateen iyo wax loo xaragoode sida mucaarad macnihiisana soo barta wadal dawlad jirta oo muxaafida mucaaradku muxuu seebo wax mucaarada nidaamkeebu wax mucaarada muxuu ka hadlaa soo barta marka ku gabanina mucaaradka meel loo diiday mucaarad ma tiidin dabadhil baatiin caloosh shaqaystayaal baatiin maalinka mucaarad noqotaan oo aan aragno mucaaradka meeshaad noo fartan ugu feeqdaan anagoo shacaba wadan ka yeelaynaa taasaana mucaaradka looga baahan yahay mucaarad ma aha nin asagu dan gaara ama shisheeye u raran ama dantiisa calooshiisa u raran ma aha mucaarad dadna xumaaya dalna xumaaya mucaaradku waa nin dalka iyo dadka wuxuu haya midda qolada muxaafidkaana wax ka wanaagsan inuu keenayo ama meel ka wanaagsan u tilmaamaya ama u balan qaadaya mucaarad la yiraahdaa marka mucaaradkeenuna waxa iska bedeleen Soomaaliya ha midowdo ha israacdo iimaankana Allah ku sugo midnimadeedina Allah ku soo cesho dawladeena deeqana Allah karaameeyo ilaahay cadowga iyo shaydaanka ha nooga qabto Soomaaliya ha israacna hada midowdo ilaahay idankiis saasan in kaga tagaya telefon baad qashqashaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh